بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود هذا شبكتين عاد تكنولوجي وقبرتين 10 كسابسات كمبيوتر التكنولوجيا. عشرة إن شاء الله بدو سنة كان منسوق ل10 إن شاء الله هرجين دونا إن 10 حنا تلا كريبوان بلابو وعشرة كوكو صوت سنة إن شاء الله وصلنا قدر حالة ديني هري عادي جاهي channel ko 10 soo diin jiray qaar taxana iyo qaar go'goos insha Allah 10 kan maanta doonayo inaan isla eegno wax weeyaan oo aan bilaabo waa tutorial ku saabsan barnaamij la yaqaan PowerPoint waa taxana ku saabsan barnaamij la yaqaan PowerPoint qaab loo isticmaalo barnaamijkani muhiimadda uu leeyahay ayuu isla eegay intaynaan bilaabin 10ka iskuulku Orbit International College wuxuu soo kordhiyay branch la yaqaano accounting gaar ahaan computerized accounting waa accounting lagu isticmaalayo maxay iyadoo computer shirkadii lagu xisaabinayo marka gaar ahaan branch la yaqaano financial one iyo branch la yaqaano ugu soo qaab advanced in dama advanced loo dhigayo marka course-kan waxaa kaloo lagu jira qaabka ay u shaqeeyaan sharaa'igta soo saara biyaha ama sharaa'igta soo saara tusaalahaan shirkadaha soo iibsada raw materialka alaab qaydin bay soo iibsanayaan dad waxay sameynayaan sambali bay sameeyaan isku keenayaan waxa kamid ah shirkadaha biyaha oo kala kamid ah waxay soo iibsanayaan caagadihii perfuumyadii leebaladii iyagoo iyo package-yadii bay soo iibsanayaan hadhowtu waxay sameynayaan sambali oo isku keenayaan marka nidaamkaana waxa loo yaqaanaa maxay qaabkay u shaqeeyaan warshadaha biyuhu barnaamij loo yaqaano advance buu ku jira kuwii ugu isku kamid yihiin marka ka course-ka ardayda faa'iidada xilligaas la bilaabay 6 ilaa 7 subaxnimo ee la bilaabay 7 ilaa 8 subaxnimo oo socda iyo 8 ilaa 9 habeenimo oo socda marka ka ardayga danaynaya waxaan la soo xiriiri karaa laymanka iyo nabadda ku qoran waxaan la soo xiriiri karaa inta markii lagu wadaan 10 bilaabano marka koobaad waxaan isweydiin doonaa barnaamijkan PowerPoint maxaa loo isticmaalaa PowerPoint wuxuu inaga caawinayaa barnaamijka loo yaqaan PowerPoint waxaa loo isticmaalaa barnaamij inta badan waxay isticmaalaan dadka doonaya wax soo bandhigaan presentation sameeya soo jeedin marka qofku doonaya presentation uu sameeyo barnaamijka loo yaqaan PowerPoint uu isticmaalayo course waxa aad uga faa'iideysan kara qof kastoo shaqeeya aad uga faa'iideysan kara waxa weeye maxay marka la report-ki soo bandhig inaad nidaam qurux badan ku soo bandhigto oo presentation soo jeedin ku soo bandhigto waxa ka faa'iideysan kara ardayda jaamacadaha aad uga faa'iideysan karaan barnaamijka waxa ku diyaarsan kartaa macallimiinta laftooda ka faa'iideysan karaan aan isku bilaabano barnaamijkan qaabka loo soo kicinayo marka doonayaan soo kiciyo waxaan tegayaa run baan tegayaa boxka loo yaqaan halkan Windows baan taabanaya +R ama sidii caadiga ah soo kiciyo search-ka ka tegayaa search-ka waxaan ku qorayaa power Microsoft PowerPoint كليك مسيني يا هالمر برنامج كيش كاتب وصقعي لو يستبق الله صقعي استبق الله صقعي كرنا Windows +R بتي كنا حنقولنا باور بي إن سهل عليه قناة سجيت والفايل كيوي وده علينا أوكي لو يستبق الله صقعي برنامج كم كستان وصقعه برنامج كتو إنترفيس كستان كلا برنامج كوبات أنت أصرف بدهان وحلوية قناة أذكر أكتر منيو ذا كلدون وحلو يقان مينيو بار بقول يقان مينيو بار وحطي ساره waxa kale oo jirta ku aragtaa waraqada ku aragtaa waraaqo ayada ku aragtaa waraqaha waxa loo yaqaanaa slides baa loo yaqaanaa wuxuu ku bedel doonaa size-kooda wuxuu ku bedel doonaa hadda size bi leeyihiin laakiin wuxuu ku bedel doonaa marka waxa loo yaqaanaa maxay slides baa loo yaqaanaa waraaqi imsa slide baan haysanaa 4 slide baan haysanaa 4 slide baan haysanaa halka waxa loo yaqaan office button waa meeshii save ka dhacay open ka dhacay print ka dhacay in badan ma isticmaal doona halka waxaan isticmaal doonaa hadii new page doonayno hadii doonayno presentation hore jirayna soo qorno sidin doonayna save kareysano hadii doonayna password ku xidhano tusaalahaan hadii doonayna daabacano waxaan isticmaal doonaa maxay office button kaas isticmaalayna barnaamijka intiisa ugu badan waxay iska jiraan barnaamijyo kale oo barnaamijka loo yaqaan Word qofkii wax ka garanaya barnaamijkan in badan baa u bilaaban qof barnaamijka Word wax ka garanaya ayaan barnaamijka lagu talagalay in insha Allah ka faa'iideysto barnaamijkan inta uu ka duwan yahay ama farqi u dhaxeeya Word waxa weeyaan in uu leeyahay dhaqdhaqaaq iyo waxa la yaqaan animation inuu sameeyo marka dhaqdhaqaaq inuu sameeyo
dhaqdhaqaaq inuu sameeyo barnaamij runtii loogu talagalay in qofku kusoo bandhigo markaa marka qaarkood slideska waxa loo yaqaan outlines baa loo yaqaan outlines waa afartii slide oo lagu soo koobay mid kasta wuxuu ka qornaa slide 1 outline 1 outline 2 outline 3 afartii slide baa lagu soo koobay marka outline oo loo yaqaan balka mid caalam soo qaadano waxa leenahay option-tag waxa leenahay new mid cad baan doonayaa waxa leenahay create mid cad noo samee sidaas uu soo baxaya kacad la sameeyaa haddaba inta badan barnaamijkan si wax loogu qoro waa intaas hoos la haystaa علينا تنسوق حاجة سريجي مثل كوباية حاجة سريجي تايتل كي كوري عرض تايتل كي كوقع صراحة لين هاي يجرسوا باوربوينت هذا ناخذ برتام هاي سب تايتل عنوان هوسات كور خلنا نروح على يقيف فحيات بحنا يسو وحيف فاهينيات بحنيسو halkaas ku qoraysaa wixii faahfaahinad bixinayso ee barnaamijka aad ka bixinayso halkaan ku qorayso marka barnaamijkan si qoraal ba suuro galo waa inaad haysataa tagasbox waxaan loo yaqaanaa maxay tagasbox baa loo yaqaanaa waxa tagasbox la'aantii barnaamijkan waxba lagu qori karo way hadda barnaamijkan wuxuu leeyahay markaan ninka doonayo inaan slide labaad soo darsado dhowr step baan soo darsanayaa inaan tago new da ku dhufto baan ku dhufanayaa control plus m keyword waa isticmaali kartaa kana waa isticmaali control plus m baad isticmaali kartaa oo slides ka tubasan kartaa way inta markaan isla fahanay waxaan kaloo samayn karnaa barnaamijka lagu sameeyaa inaan laba presentation isku dhex daro presentation waxa laga yaabaa presentation hore diyaarisay inaad doonayso inaad qurxiso dabadna kii kale markaad diyaarisay ku qurxin lahayd labada intaas isku dhex daro laba presentation isku dhex daro iyo new slide baan furayaa waxaan ku dhufanayaa slide from outline hore jiray ama presentation hore jiray ayaan doonayaa kan inaan ku dhex daro guud ahaan ku dhex daro halkii uu yaalay computerkaagana ka yaalay ayaan tegayaa mid halkan uu yaalaa laakiin uu muuqdo ishaas la furaa waxaa laga dhigaa all files dhammaan fileska halkaa hadda wuu imanayaa waxaan keenayaa tusaale ahaan chapterka loo yaqaano chapter 4 baan kusoo dhex daraa marka chapter 1 waxaan leenahay insert ولا سو جديا وقع سومالك chapter 1 وكي كا لو دحتريا marka kaas la yaqaan isla farwaqlay ka dambeyn isla arki doono marka qaar waxa isticmaalka kaliya daawi leenahay control plus marka noqonay waa undo marka waxaan u baahan karnaa inaan qayb kamid ah ku dhaxtano qayb kamid ah insert marka afwa waxaan leenahay home علينا new hadaad qayb kamid ah ku darsato restitute live علينا browse soo dooro علينا browse from the file as a file soo dooro halku yaala ayaalo leenahay halkan diis wuxuu si yaala halkan wuxuu yaala qortaas wuxuu yaala waa kan bad salan soo qaado chapter 3 ga soo qaado clicksi imkan uu soo dhaxtari maayo daaragtaan halka keeni maayo email kale keeni oo kala keenay ani inta slide baa istaan qaar kamid ah baantay kaas tan u baahanay hal mar ma ku dhufanay click soo gali soo baartaan inta ma tahay ugu joog casharkeenu dadku cusub tahay nagu soo biir ardayda ku xidhan insha Allah wa ma santahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh